Sahamiya Foundation ayaa soo gabagabeeyay wejigii labaad ee lacagihii loo qaybinayay dumarka danyarta ah ee khasaaruhu ka soo gaadhay gubashadii suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Lacag isugeynteedu tahay 313,000 iyo weliba $700 ayaa loo kala diray 761 qof oo isugu jira 410 qof oo toddobaadkii hore lacag loo diray iyo weliba 351 qof oo toddobaadkan la gaarsiiyey lacagaha deeqda. Dhammaantood dadkan waxaa lacagaha loogu kala diray adeegga saadka oo aad u fududeeyay shaqada. Hawshan oo la bilaabay 2 cisho kadib markii suuqu gubtay waxay caawisay dumarka danyarta ah ee aan sugi karayn inta ay guddiyadu bilaabayaan bixinta lacagaha. Ganacsatada yaryar ee lacagaha helay waxa ay durba kordhiyeen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa sida khudaarta oo aad hoos ugu dhacday markii suuqu gubtay. Aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Hodan Xasan oo Muuse oo suuqa waaheyn ka ganacsan jirtay. Haddii la yiraahdo anigu subaga sixinka ah iyo subaga xaydha eegeela iyo heenka iyo xaydha ariga iyo tanag muqumara oo inaan dhalay keeni jirtay oo jirtay intaas aanu ka ganacsan jiray. Alaabtaydii xabada joog ah soo shan galaan ku jiro oo subagi ka soo shan galaan ku jira baa la iga saaray. Toban shirikaana way ahaayeen subagaygu. Alxamdulillah haddaanu naftayda kala baxday bakeeri malqacad oo kala leeyga saarin. Xaalada $500 bay soo gaadhay. Saaka alaabtii bad baan ku soo iibsaday. Badna deyn baan iskaga bixinayaa subagayga gubtay deynkiisa ma damcayna iskaga bixiyo intaanay deygu bixin xaasli baan hayaan waxba haysanay. Deydana waa mahadsantii. Anigoo Sarac way sidaana oo kamid ahaa ganacsatada waaheyn waxyeelada soo gaadhay nimankana lacagtii la nasiiyay si fiican oo soo gaadhay shaqadiina halka ka bilownay waan idin mahad celinaynaa aakhirada adduunyada waan idin mahad celinaynaa noolaada waxaan ahaa ganacsatadii suuqan waaheyn ka mid ahayd dabku annagana wuu qabsanin laakiin jaarka iyaga ayaa gubtay hadii jaarkaygu gubtayna intii la qaxday way barakacday ayaanu ahayn alaabtayadii inna waa la balaqaystay inna way maxaan raday booskii bay ku dantay askarta aniga celisay meelan u soo maraan weynay halkii bay ku dintay ayga cidlada baan u qaxnay ma sha Allah lacagtii la noogu tuuracayna waa la nasiiyay waana ku shaqaysanay imika oo waanaga ku shaqaynayna emeeradii dib ugu soo noqonay ee ku shaqaynayna alxamdulillah rabbil caalamiin ninkii nasiiyay waxaan leenahay wax khayr qabo oo badan Allah ku soo weydaariyo rajadaydu aad bay u fiican tahay inaan shaqaysto oo halkayga ka sii wataabaan ilaahay ka rajaynaya imika aan ka wataa shiraqle waxaan joogaa 22 sano waan ahay dadka xoogiisa ka ganacsaday yani xoogooda iskaga xamaasha waxaan haystaa 9 ciyaalo oo aabbo iyo cid kale midna aanu igu taageerin suuqayga iyo xoogayga ayaan ku ganacsan jiray ilmahayga ku korsaday alxamdulillah rabbil caalamiin anigu maan guban been sheegi maayo dab inuu soo gaadhin oo maan gubanin laakiin waxaanu nahay dadkii cagta la mariyay ee wuxuu burburay ee la bilaqaystay ee la sii jiray ee waxba wuxuudii yaraa marka cagtu ay la tagtay lacagtii waa la siiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kii bixiyay xaqiisii waa ay inta ka shaqaysay dhamaan waan u mahad celinayaa miisaanka xasanaadka Allah ugu daro aniguna waa aniga durbaba ganacsigaygu ku bilaabay inta kalena waan ku sii kobcisan doonaa magacaygu waa Hinda Digriye Xasan waxaan kamid ahaa ganacsatadii suuqa waaheyn ku jirtay annaga waxay noqdeen wax la jiiray oo jiiray dadamiski iyo wax maxay adinku la tago alxamdulillah rabbil caalamiin lacagteena siisay shirkadu wayna soo gaadhay wanaga ganacsigeedii dib u furanay wanaga maxay shaqaysanayna ilaahay dadkiina siiyay waa mahad celinayna alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ahaa dadkii suuqa shiraaqle ku gubtay muqmadleydii waliba khaas ahaan lacagta nala siiyay wayna soo gaadhay kii soo bixiyeen xasanaadka miisaanka Allah ugu daro ganacsigayga baan dib ugu bilownay wadiga arkaya waanu iibinaynaa waxbaanu soo siisanay ma sha Allah baanu nay isagana hambalyo iyo salaan iyo ducaan u marinaynaa hawada أنا آمنة آدم بمقعي قلنا هذا وحنا هاي كان عستدي سوق واهين كو بسنجرتي دركا كجوجو بتي وح دركي العتي حلو سوق قاعدي دركي وكواس ونكسو بسدي ما شاء الله قيل كمان مكسوب بالفرستي يدي له عاد بيوقف عنها الحمد لله ساسي سكسو في عننا يوسي بركودنا إلهي بنكرتشينا إذن كنا إنسو دعية إذن لو أنا دين دعينا يا هلك كسر إلهي دين بركة